زكاتك تدفع عنك البلاء وتحفظ مالك أن أقام. لذلك قال الرسول الكريم فلذ بالنداء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta naga mudan halkaan naga dhageysanaysaan waa idaacadda quraanka kariimka. لهم عند ربي عظيم المقام. هنيئا لمن يخرجون الزكاة لهم عند ربي. dhegeystayaal waxaynu soo gaarnay gabagabadii bishii Ramadaan. waxaynu gordhowdii soo gudbin doonaa muxaadaro ka hadli doonta zakaatul fidriga iyo ahkaamteeda. dhegeystayaal iminkana ku soo dhawaada muxaadarada oo halkaan ugu soo jeedin doona fadiilatu Sheikh Maxamed Sheikh Umar Dirir. alxamdulillaah والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد درس كان نضم بي رمضان تم وحين كهد إن شاء الله سكذا الله يقان سكاة الفطر. سكذا رمضان لك لغا أفرال بحيه أما تشرك لغا بحيه أما مضح أما قرط. سكاة الفطر محل وقت جدا والصدق الله بحيه مركز رمضان لغا أفرال muddada la waajibiyay waa sanadii labaad la isweydiin karaa xukunkeeda ma sunna mise waa faral ma waa faral sakada xoolaha faral ay u tahay ayay iyaduna faral u tahay. nabigu wuxuu waajib ka dhigay sakada ramadaan marka laga afuro loo yaqaan sakaat fidriga waa timirtii iyo heeda bahasha la yiraahdo dadka laga bixinayaana waa qofkii xorta ahaa adoonkii labkii dhadigii muslimiinta oo dhan. laba faa'iido ku jira midna mujtamaca ay u soo noqonaysa faa'iido midna qofka masaakiinta gurmad bay u tahay oo maalmaha xoolo badan bay helayaan siiba maalinta ciida sadaqadii marka loo soo ururiyo qofkii soomanaana ilaahay uu ku nadiifinayaa marka kii bixiye kii la siiyay labaduba way ka faa'iideen. sakadan yaa laga bixinayaa waxa laga bixinayaa qof kasta oo muslima waayo ala kulli muslim buu nabigu min almuslimiina marka qofka bixinayaana waa inuu helayo qofkan kalena waa inuu muslim yahay ama qangaar ha ahaado ama ha yaraado ama ha weynaado adoon ha ahaado ha waalaado qof walba waa laga bixin. sakadan iyada ma loo shartiyaa sidii xoolihii nisaab مثلا qofku nisaab wax saka gala haysto waxba looba shartiyo لأنه قال صلى الله عليه وسلم على المسلمين مسلمين تودن buu caam yahay marka qofku inuu xoolo saka xoolo uu ka bixiyo haysto waxba sharti ma isagu baa loo shartiyaa habeenka iyo maalinta waxa uu cunaya wax ka soo hara inuu haysto. dayn hadii qofka lagu leeyahay sakada mi hor joogsanaysaa maya الدين المؤجل لا يمنع وجوب زكاة الفطر. زكاة الفطر ما hor joogsanaysaa hadii dayntu waqti laada waana mid lagu haysanin hadii lagu haysto laakiin daawad iska bixin qadarka waajibaya waa intee saacaba ku sugan xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam saacu wuxuu ahaa wax sida dhiilka kala ah oo lagu miisan jiray bariga hore raashinka laakiin markii la qiyaasay qadarkiisa waxa lagu tilmaamay inuu yahay 2176 gram. inagu laba galaan iyo bar baynu bixinaa ama 2 kiilo bar wayba ka badantay ma laga badin karaa mise waa in lagu xadidaa un saaci uu ka kordhin karaa qof ilaahay baa wuxuu faman tadawwaca khayran fa huwa khayrun lahu. rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ninkii sakada bixinayay ee bixiyo wixii lagu lahaa wax ka weyn ama ka shilis wixii aan kugu lahayn noocaas oo ahaa kana uu ka weyn yahay laakiin waa ka aqbalayna ilaahayna uu ka ajir siinaya. sakadan iyada noocyada laga bixinaya waa noocee raashinka waxa laga bixinaya ilaa 7 nooc oo waqtiga laga bixin jiray iyo wixii la mid ah hadda timirta heeda sabiibka caana booraha baasha la yiraahdo qamadida sareenka garowga ama masagada intaas laga bixin jiray bariga hore imikana de bariiskiya baastadii iyo daqiiqdii timirtii iyo waa laga wada bixin karaa wixii aan ahayn saliida iyo sokorta lacagnimo laguma bixin karo waa raashinuun nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam
waxa uu ku bixiyey raashin dadkana fara inay ku bixiyaan xikmadda wallaahu aclam miskiinkaa jecel weligiiba ha jeclaado wuxuu nebigu jeclaadun baynu jecellahay markay laba arrimood taagan tahay adiga dantaada iyo danta miskiinka dee diin ahaantaada horeynaysa faralku siduu sax ku yahay unbaad ku fulinaysa nasiib wanaag innagana dee masaakiintu maba diidaan iminka raashinoo baahidaa jirta baahidiiba aada u badanba goorma ayay sakadani waajibaysa muslimiintu waxay isla waafaqsan yihin habeenka ciidda mar haddii la afuray ila min alfidri buu nebigu marka laga afuray min fidri ramadaan kol haddii ramadaan laga afuray iyo faradabaa isku xidhan wuu waajibiyey waktiga laga afuro ramadaan markaa kol haddii habeenkaa ciidda la gaadho waa waajib sakadan iyadaa ma laga sii horraysiin karaa waktiga ah horta sida afdalkaa waynu soo tilmaannay laakiin culimmada in badan oo ka midii waxay leeyihiin kol hadday saka tahay sakaduna laba sabab ay lahayd sababkii hore ramadaan buu ahaa sababka labaadna ciid buu ahaa marka ramadaan ay soo gasho ama ramadaan dhexdeeda waa la bixin karaa sakadan iyada ayaa la siinayaa waxaa la siinayaa fuqarada iyo masaakiinta labadaa qolaa waktigii nebiga la siin jiray kuwaasaana loola gurmanayaa sidaasaanay muslimiintu isku waafaqsan yihin ee waxba lala raadsan maayo 8 qolo ee aayaddu ay sheegtay kuwii daymoobay iyo kuwii islaamka lagu soo dhaweynayay waxaa wax badan ka gaari maysee labadan qole aada u xayraankayn hortaaga fuqarada iyo masaakiinta qof horta wax haysto oo dee isagu iska ladan lama siinayo gaalkiina lama siinayo waalidkaaga ma siinayso aabbo iyo awoogo hooyo ayeeyo dadkaa waalidiinta ku ah carruurtaadana ma siinaysa gabadhu ma siin kartaa ninkeeda hadduu baahan yahay iyada haabaa la leeyahay leannahu kuma waajib kuma aha masaariifta ninkeedu waajib kuma aha meel kale ma la geyn karaa miyiga iyo magaalooyinkaa kale baahan iyo waxaa la isku waafaqsan yahay haddii halkan sakaad fidriga lagu bixinayo baahidu ku yarta oo dadku iska ladan yihiin waa la qaadi karaa sida dadka debadaha jooga oo kale dadkeenna debadaha jooga waa laga yaabaa qofka hadduu idhaa inta raashino qaado inuu idhaahdo raashin uma baahniye meelaha geed oo dadku ay iska wada haystaan bariiska ayaa waxaa la yara cunaya taa waa la isku waafaqsan yihin saa daraaddeed dadka debadda jooga oo kale halkan ay usoo dirayaan lacagta raashin baa lagu iibinayaa fuqarada iyo masaakiinta la siinaya sakadani haddii ay ku dhaafto ma la soo qalaynayaa mise saasay ku dhaafto maya waa waajib maalintii ciidda haddaanad bixinin oo ay ku dhaaftay waktigaas fursaddaasi ku dhaaftay faral lagugu leeyahay wey waa sidii sakada xoolaha oo kale dayntu ma duugowdo nebiguna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam fadaynullaahi axaqu an yuqdaa daynta ilaahay baa ku habboon in la bixiyo markaa qofkiyuu u qaadanin hadduu maalintii ciidda iyo ramadaan iyo sakaatu fidrigii seegay in la iska daynayo waa inuu qofku markuu xusuusto bixiyaa dadkana sidaa loo sheegaa oo qofku uu ka gaadhsiiyaa xataa hadduu subaxii ciidda ilaaway maalinka ciidda waa inuu ka gaadhsiiyo faralkuna in loo dhaqsadaa buu mudan yahay oo la ilaaliyo sala allahu calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbi wasalam dhegeystayaal inta aynu kusoo gabagabeynay muxaadaradii ka hadlaysay zakaatulfidriga iyo axkaamteeda oo halkaa noogu soo jeedinayay fadiilatu sheekh maxamed sheekh cumar dirir halkaa naga dhegaysanaysaan waa idaacadda qur-aanka kariimka dhegeystayaal intaynu ku kulmi doono muxaadarada mid la mid waxaynu idinka tageenaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh لذلك قال الرسول الكريم فلد بالنداء تفز بالمرام